لحظتكي دراتن دغحتول بلوغي الليالي يواهي تعبكي نبيبي يجعبكم استيون دغقبها إليني يتنزلين ويلي بيتي نعورتي دامي يجعبكم استيون دغقبها dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Ostifool sidoo kale marti sharafta nagala soo qayb gashay barnaamijkeena haday ahaa lahayd Somali National TV sidoo kale martida nooga timid Oslo dhammaan soo dhawaada mudanayaal iyo marwooyin waxaan ku faraxsanahay barnaamijkeena inaan nagala qayb qaadataan oo aad maanta meeshan munaasabadan qiimaha iyo qaayaha badan aad ka soo qayb gashaan barnaamijkeenan maanta waxaan ku furanaynaa heesta qaranka ee Soomaaliya dhammaan dadweynaha waxa ogeysiinaya inay meeshan imaadaan ay istaagaan calanka heesta calanka markii la qaadayo aad iyo aad waxaan idinka codsan lahaa inaad soo dhawaataan barnaamijkeeni hadda oo inoo bilaabmay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaad nagala soo qayb gashaan Somaliyey toso isku tiirsadaye bakiina taagdarale taageera waligiine waxaanu hayo ilmadayga qubalayso tiyaani loo diido la adoonsada lahay على يغوت ما وحباب إذاك أغتاك ويهو إدك دينا تيرينيسا لحظك قسيتالي
ayalkuwa haystiyo illeeli lagu helay dad baa dhulka loo jaray gobolnimadu dhalantee ayalkuwa haystiyo illeeli lagu helay dad baa dhulka loo jaray dolar dhafsado maqal dino wara dolar labsado makal ganda dino wara wandara huliyadede kodalulya walataha kodalulyo nileba kudate kodalulya walataha kodalulyo يدوي النحل قرا ودلولي وانا داخل ودلولي عالم بينو ديدبري ودلولي وانا داخل ودلولي مدن بتينيو تدوكينا أوميدا البحوي الولوسيو ودابات شمحذوي ابني مدن بتينيو تدوكينا أوميدا البحوي الولوسيو ودابات شمحذوي الليل لو خلي بدبا انت لو جري وبني ما دولانتي هي القوة وايستيو الليل لو خلي بدبا انت لو جري مدن يالي مروي dhalinyarada odayaasha bulshada qeybeeda kala gedisan siyaasiyiinta aqoon-yahaniinta waxaa idin leeyahay ku soo dhowaada munaasabaddan ciidda ee barnamadii waddankeena Soomaaliya ee kooda luuli waxaa farxad weyn inoo ah anoo ku hadlaya magaca bulshada Saashbuur ee gudoomiyaha u ahay inay xafladda ka qabsanto magaaladeena Saashbuur ee amarti gelin aad ugu faraxsanahay waana ku mahadsantihiin sida aad isugu xisaabteen oo nolol ka taagantii mar waliba in ay Soomaali mid ahaato Saashbuur waa idinka mahadcelinayaa aad ugu mahadsantihiin waxaan rabaa inaan taqaanaa si taas ah ugu mahadceliyo ururka dhalinyarada jaaliyadda Frederistaad aan isku kaashanay inaan waxaan qabanno aan aragno inaan qaban karno waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda in halgan iyo moosan lagu soo darsoomaan si aysan u noqonin wax maalin keliya la qabtay oo keliya inaysan noqon inay noqoto wax joogtaa waxaa meeshan muhiimadda ugu weyn ee loo qabanayo waxay tahay kooda luulyo dhalinyarada caruurta inay ogaadaan inay leeyihiin dhul waddan iyo calan loo soo halgamay dibna loogu noqon doono
waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dadkii soo agaasimay khaasatan reer Frederick oo ka qaadatay run ahaantii qayb libaax ah oo muxuu ahaay jaaliyadoodii odayaashoodii dhallinyaradoodii iyo haweenkoodiiba kibin guruubihii Frederick hawshan howl weyn ka qaateen aad baan u mahadcelinayaa khaasatan waxaan u mahadcelin doonaa insha Allah reer Sashford oo gudoomiyahoodii iyo kibin guruuboodii iyo dhallinyaradii reer Ostafol barnaamijkan ahaantii waxaa agaasimay jaaliyadda Frederick jaaliyadda Sashford iyo kibin guruubaha Frederick Sashford iyo dhallinyarada sidoo gudoomiyihii Sashford u sheegay sanadka soo socda waxaan rajaynaynaa inuu nagu soo biiraan reer Halgan iyo reer Moos hadda waxaa ka hadli doonaa taariikhda Soomaalida waxaana noo casuumin maantay nin la yiraahdo Deeq Cali asagoo dhar ku labisan idii dhaqanka hadda ayuu stage-ka noo soo karayaa marka soo dhaweeya Deeq Cali baasho sniitay mudda kubyaan maanta waa ummadda Soomaaliyeed waxay u tahay maalin qiimo weyn ugu fadhida isla markaasna kaalin weyn ku leh dhalashadii iyo hanashadii xorriyadda Soomaaliyeed ee hanatay sanadkii 1960kii halgankii ummadda Soomaaliyeed uu hoggaanka u soo hayay xisbigii SYL qaar ka mid ah halgamayaashii dalka u soo halgamay waxay ahayd talaabo loo qaaday sidii la isaga qaadi lahaa heeriyadii gumaysiga isla markaasna ummadda Soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa xorriyad taam ah dad badan oo Soomaaliyeed ayaa suurtagal tahay inaysan maanta la socon inay tahay maalin qulubta shacabka Soomaaliyeed kaga taal meel muhiim ah isla markaasna taariikhda dalka Soomaaliyeed ka gashay baal dahaba waxaa sidoo kale si buuxda u soo baxday inay jiraan dad badan aan fahamsanayn qiimaha ay leedahay xorriyadda iyo in dad waliba uu yeesho calan iyo dawlad caalamka laga aqoonsan yahay xorriyadda ummadda Soomaaliyeed ay hanatay sanadkii 1960kii waxaa loo soo maray halgan aad u dheer oo dhiig badan ku daatay isla markaasna halgamayaal fara badan ay maalkoodii iyo naftoodii u hureen si ummadda Soomaaliyeed u helaan xorriyaddii Rahmaanir Rahiim hambaliyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed reer Ostafol iyo reer Sashford waxaan maanta halkaan uga dabaaldegaynaa xafladda 1 July oo ay maalmo ka soo wareegtay macnaha way noo suurtagali weyday inaan kowdii macnaha aan isu nimaadno sababtoo ah iyadoo Ramadaan ahayd aad baan ugu faraxsanahay maanta inagoo joogna cirifka waqooyi ee adduunka inaan u dabaaldegno oo calaamada soo xirano oo xusno wax yar waxaan ka dhahayaa 1 Luulyo horta maxay tahay 1 Luulyo waa maalintii xorriyadda gobolada koonfureed ee Soomaaliya waa maalintii midnimada labada gobol ee waaweyn ee xoroobay ee shanta Soomaaliya ka xoroobay gumaystihii Talyaaniga iyo Ingiriiska ay midoobeen waa maalintay qaateen halka calan oo buluug ah waa maalintay yeesheen hal magaalo madax oo la yiraahdo Muqdisho ay isku raaceen 1 Luulyo waa maalintii uu lahaa tima cadde kana siib kana saar isagoo oo tilmaamaya calanka buluuga ah calanka Talyaanigana leh hala dajiyo waa maalintii Cabdullaahi Qarshe lahaa waa ciida maanta 1 Luulyo inay qiimo weyn ku leedahay inay sharaf agteena ka leedahay waxaan ku garanaynaa maanta oo dhan inagoo caruurteena oo aan 1 Luulyo weligeed arag oo maqal ayay waxay u taagan yihiin iyagoo qurux badan oo loo soo labisay calaamada loogu soo labisay ay waxay ku taagan yihiin ay quruxda u taagan yihiin marka 1 Luulyo ha noolaato 1 Luulyo iyadoo calanka wadata iskama iman 1 Luulyo waa loo soo halgamay 1 Luulyo waa loo dhintay 1 Luulyo waa loo soo dagaalamay dadkii u soo dagaalamay iyagoon calanka wali arag ayaa badankoodu dhinteen wayna ku qanacsanaayeen
sida aan aaminsanahay way ku qanacsanaayeen sababtoo ah nin kastoo dagaalamaya inuu miraha gurto uguma talagelin inuu miraha keeno ugu talagalaa oo mirahaas uu abuuray in la gurto dhalinyaradu waxay aad ugu dheeraatay SYL way mudan yihiin xornimaday dhaliyeen wax weyn bay qabteen laakiin gobonimadoonku uu ka horeeyay wuxuu soo bilaabmay 1800 dhamaadkeedii buu soo bilaabmay waxa 1800kii dhamaadkeedii buu soo bilaabmay geesigii weynaaye Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ee hogaaminayay geesiyada daraawiishta hogaaminayay wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay oo qori u qaata oo yiraahda waxaan dalkayga ka xoreynayaa gumaystaha Ingiriiska Talyaaniga iyo Xabashida wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyay oo ciidamadiisa daraawiishta lagula dagaalamo in Afrika diyaarad isagoo oo fadhiya qalcadii Taleex wuxuu u dhintay gobonimadii uu dagaalamayay ma arkin laakiin annaga harsanay
keeno ayne Soomaaliyeed oo gaana weeyaan deegaankeena hodanka oo wada hamuume riwaayadda dadka aad arkaysaan ee iga dambeeya qurux badan ayaa jinayo ninka koobaad haddii aan ku bilaabo cabdiqays saaxiibkayga qaaliga aan jecelahay macalinka dhaatada gobolkan Ostifol aad wada garanaysaan ninka ku xiga waa Axmed Ibrahim asagana waa nin aan dhicin gabadha ku xigta waa Xamdi Maxamed wiilka ku xiga waa Duraan waa ninka fikraddan iska leh iyo Ismaaciil oo wada garanaysaan oo ciyaalka xaafadda iyo anigoo ah isku dubarida marka waxaan bilaabi doonaa riwaayadii inta maxaa marka waa inaad nala socotaan insha Allah riwaayadana waxay ka turjumaysaa midnimo iyo Soomaalinimo insha Allah tacaala marka anaga ay soo bandhigayna hadda insha Allah maanta riwaayadda waxaa ku jirayaa waxaa ahay nin madaxweyne ah waxaana madaxweyne ka ahayd maamul goboleed la yidhaahdo Puntland marka halkaan waxaa u imid inaan ka qayb galo shir caalami ah oo hay-adaha adduunku ay qabanqaabinayaan marka waxaan rabaa soo dhaweyntiina inaad soo dhaweyso maadaama madaxweyne dhan oo maamul goboleed hogaaminaya ahay marka dowladaha caalamka la safaraya maanta waa mahadsantiin gabar baa timid gabadhaan tiro ma kaamiraysta ahayd waa adiga anigu waxaa madaxweynaha caan oo adduunka laga aqoonsay oo ah madaxweynaha maamul goboleedka Puntland journalista sheegaysa maxay tahay Puntland kale ugu yeeray kulankeeda umaadeen adiga gudooda journalista sheegaysa ee sawir laga qaado timaadide maana journalista malaysi ana ku leeyahay qofkan ahmed khalaafta bal sukay sheeg waa qaan madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa leedahay baro وبيلان واو ومامل دولار كتيروي كاسة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله من كلام صادق هذا مثل شرف بدران أمريكي ريمتي أظن بشير أنت كلاي أظن بشير أنت كلاي ويا ورمشك أنا كلي اسمه اللي يسوع السوبر معاه ما والله كذا وبس كل شيء قبيلة لا قبيلة واو كأنه تقول تعالى وركضنا وركض ما شاء الله قبيلة ما تقول طريقة قبيلة أنا محمد مدحوينها مامل قبلك وبيلا ما يلها محمد أنا ماشي كايس أنا سويت بعدين ماشي شربة كلها محكش بقولها أدور شربة كلها شربة كلها أنا وطلع كلوري لو أركبه وضفنا ورسمها شيء وضفنا وحنا مدحوينها مامل قبلك كبدلان بدلان هاي waxaad ii sheegtaan anugu meeshaan shir baan ku lahaa dad mas-uuliyiin la kulmiyey maxaa meeshaan ka soo doontay anagu meeshaan horta waxa uu warbas kama hayo dhaba meeshaan horta waxa uu shir caalami ah oo qaramada midoobe igu casuuntaan meeshaan u imid dadkaan dhan waa ogyiin waa ka soo qayb galeen laakiin idinka laynama ogeyn bal qabiila soo dhowow maadaama aad madaxweynta maxaa wax soo saarkaaga waa maxay maxaa qabatay horta saa inka muuqataniyo waxaan umaleeyaa horta madaxweynaha qabiila inaad ahayd waa maamul goboleedka waan maqlay waa maamul goboleed aan dirsanahay laakiin maamul goboleediina kalena waxaa ma haysaan annaga haddaan nahay Puntland maamul goboleedkanaga waa la yaqaanaa waa maamul goboleed awood leh hataa dhaqaale kale uma baahna waxaa dowladda deriska nale ee walaalaha badanada waxa ay kala soo degtay keliya aan u filan adiga bal isu kaana sheeg waa maamul goboleedka ka socotay iyo waxa ka ganacsan aniga sawir u sheegay waxaan madaxweynihii maamul goboleedka Puntland oo waxaan soo saaraa nafaqada limcada wadankeena ku jirto maadaama Puntland yahay oo la'aanteena waa abaar wadanka waxaad haysaan ma meesha waxa kuma haysaan qabiil laan iyo aduba maxaad haysaan maxaad ka ganacsataa waxaad ka ganacsataa beentay propaganda bitti baagida warninka waa ninka loo baahaya ninkaana waa nin caan ah waa ninka ka soo horjeeda dowladnimada marka waa ninka 25 sano isaga ku nooleen aad baa u mahadsan tahay qabiilaan marka hadda maxaa hadda ma garanaysaa ilaa weyn waan is aragnaa nin walba waa madaxweyne
marka yaa والله صدق kala yimid baa mara buluga wata هاي ورنا ورنا وبعدين ماشي معك ويسان قالنا كويسين هاي سنك أنا قال لي يري مدعوني سومالي أنا هاي أنا قال لي يري أدوكم واحد هذا المفتي محمود هذا برنامج كلوي مثل ما هذا مسوي وحبات جورناليستيان أنا وشربا من دولة درس كنرا إلى حسوتي أنا مدافعنا بالله ما دام أنا كمان سنقانا دعنا قبيل لان يبور لان dadka wada saaxiib laakiin adu maradan oo Soomaaliya ma boqol wax madaxweyne leedahay Soomaaliya aniga adduunku yaa aqoonsan yahay oo madaxweyne ka oo calankeedu waa aniga wata adigu ma dadkiina qaadawada iska socdaa meel ay matalaan idoo matalaan jira ya شركة واحد سام مدحوينها نقول الواقع قبيل لا بلنا قبيل لا واسنا قال وقبيل لا واسنا أصلا مسؤول لغة كلا حالة بس الله أصلا ما ممكن قبيل لا وعلي أقول وقت واسنا قلنا ماتي وحا عليك أوديك إن السعودان حسمين وكبر يا أنت سوماليا مدوبيسو نيو وحدا عسنينا إن أبو حتى ربطا أنا لوه جامل ما أنت قبيل لا ما دام يسستاي قبيل لا وإنها سجدوي وقاسي قبيل لا أنا يوم رفعت بدنا نصمر سيسي دبعتنا كامرني أنا أدور ونقدر ليهو وحربنا ما تينا مليونه وحي هرنا كنا واتن سلوك فلو وحسوسته وحسوس نصيب بات عمل نطور warnimayaho waxaan qabiilan iyo waxay keentay hatta waxa ninaan geeridiisa maqal baa wuxuu yiri ninbaa madaxa ka mid ah Soomaaliya maalin walba wuxuu ku ducaysan jiray ilaahu gabro naga qabo markuu salaada ka baxo maalin daba xilligii salaada duurisoo ka baxaya waxa isku soo beegmay xilligii salaadu ka baxayay gabriyo meesha soo istaagay way ducay kari waayeen nigu hagaagi jiray markaas yiri ilaahu saas ku eegan bino tahay وروحان قبيلان iyo hebelaan iyo waxaan inta iska deeyno reerihii isku dirtay labay kala kaxaysay kuwaas qabay kala kaxaysay dad isticlaabay kala gooni dhigtay aanika calanka Soomaaliya buluuga wata asku wada raacno maxaan ku diidanahay waxaan ku diidanahay u sheeg aniga anu Soomaaliya ahay nimanka waa Soomaali calanku naga dhaxeeyaa dhulku naga dhaxeeyaa Soomaalinimadu way naga dhaxaysaa diintu way naga dhaxaysaa bal nimankan waxay u ordayaan weydiin war inta uu sheegay wax ka macaan ma jiray ma Soomaalinimada qaadano war ma isku raacay Soomaalinimo annagu haddaan nahay maamul goboleedyada ka dhisan waddanka waxaa mas-uul laga ah qabiilan asaga ayaana dhisay taladii asaga uu go'aamiya ayaan nagoo ku raacaynaa maadaama ra'yi fiican keenteen waa inaan igu raacnaa Soomaaliya hanoola Soomaaliya halkaan ka salaamayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed oo halkaan isugu timiday anigoo u mahad celinaya allaha weyn noo ogolaaday inaan halkaan maanta isugu nimaado ku faraxno annagoo tilmaantii calanka sidana aad iyo aad ayaan idinka mahad celinayaa dadweynaha sharafta leh ee ka soo qayb galay sidoo kale waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo ururka dhalinyarada Ostifol oo noo fududeeya hawshaan munaasabadan aad qaali u ah isla markaasna na xusuusiyey wax aad iyo aad qaali noogu ah oo muddo dheer aan tabaynay u safri jirnay ilaa Oslo aan jirnay aad ayaa u mahadsantihiin walaalayaal waxaan aad iyo aad aan nasiibkayga iyo nasiibkiinaba allaha weyn ugu mahad celinayaa annagoo faraxsan oo weliba weheshanayna calankeennayna halkan maanta isugu nimid su-aashu waxay tahay laakiin waa maxay munaasabadan faa'iidada ay leedahay waxaan filayaa qofka halkan yimiday inuusan u baahnayn wax badan in loo faahfaahiyo laakiin ubadkeenna aayatiinkeenna ummaddeenna halkan isugu timiday waa muhiim inaan qirno qofka aan nahay jiritaankaagu adigu muhiim ku yahay ummadda Soomaaliyeed muhiim u yahay qof kasta oo halkan joogay wuxuu safiir u yahay halkii uu ka yimid iyo ummadii uu ka yimid iyo cadadii uu ka yimid
waxaan u malaynayaa Soomaali magaca la yiraahdo wuxuu leeyahay astaan qaran oo ku salaysan ummadda iyo dhulka iyo calanka waa kan maanta u dabaaldegayno dhulkii iyo dadkii ka soo tagay oo halkan isugu yimid waxaa muhiim ah inaan ubadkeena dhaxal uga tagno ma hayno cid noo turjumaysa ma hayno dhul noo hirinaya ama dowlad matalaysa calanka Soomaaliya waxaasaf wakiilka ah oo matalaya wacdinka waxaan rabaa mid inaan xusuusiyo walaalayaal waxaan nasiib u yeelanay inaan Norway nimaado waddan dimuqraadi ah waddan aad loo soo dhaweeyey laakiin had iyo jeer waa muhiim inaanan iloobin dhulkii iyo dadkii iyo astaantii aan lahayn jiritaankaada iyo sharaftaadu waxay ku xiran tahay inaad qirto qofka aad tahay inaad ogolaato inaad Soomaali tahay inaad huwan tahay calankaas isaga calanka shanta Soomaaliyeed ay kaga sawiran tahay calaamadaas sharaftii iyo wixii loo soo maray walaalo hore ka hadlay waxaan rabaa sidoo kale mudnaanta uu halkan ku leeyahay inaan muujino annagoo dhammaystiran waxaan ballan qaadaynaa intaan halkan joogno annagoo kaashanayna dadweynaha Soomaaliyeed oo ku nool Ostifool jaaliyadaha sharafta badan dhammaantood reer Ostifool ah in arrintaas si wada jira sanad walba aad u heli doontaan haddii Ilaahay idmo waa ballanqaad ay sameeyeen jaaliyadaha waan ugu hambaliyaynayaa waxaan kaloo rabaa ka aniga ahaan ka siyaasi ahaan inaan had iyo jeer habeen iyo maalin idin garab taagnaan ayaa idin ballan qaadaynaa waxaan kaloo idin sheegayaa ummadda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay wax mideeya waxaana mideeya kaas waxaana mideeya Soomaaliyeed calankaas weeyaan waa inaan ogolaanaa calankaas kaasaan sharaf ku leenahay kaasaan Soomaali ku nahay kaasaan maqaan iyo muunadba ku yeelanaynaa insha Allah ballanteenu reer Ostifool waa annagoo isku duuban annagoo wada jira annagoo Soomaaliya wax kasta oo naga maqan inaan ku raadsano wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii farxad gaar ah ayay tahay maanta inaan ka soo qayb galo munaasabadda qarannimada Soomaaliyeed oo lagu xusayo gobolka Ostifool magaalada Sarpsborg iyadoo iska kaashadeen dhammaan degmooyinka uu ka tirsan yahay gobolkan Sarpsborg ayaa waxaan jecelahay gobolkan waxaan leeyahay Ostifool ayaa waxaan jecelahay inaan marka ugu horeeya الأول إلهي ومهدق سبحانه وتعالى مركا لبعض وحن جعله وانا مهدقه dadkii isku soo dubariday xafladan oo ay ka mid yihiin ama hormoodu yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee Horn of Africa ama ururka dhalinyarada ee Geeska Africa ururka hooyooyinka ururada bulshada iyo jaaliyada reer Sarpsborg iyo Fredrikstad oo iska kaashaday iyo waliba haldan waxaan leeyahay walaalayaal waxaan ay maanta qabateen waa wax qiimo leh waa wax taariikhda gori doona waa wax waari doona oo waxay farxad gaar ah noo tahay inaanu ka soo qayb galno waxaan runtii idin leeyahay hambalyo maalinta qarannimada Soomaaliya dhammaantiinba walaalayaal runtii annagu haddaanu nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee qurba joogta ee adduunyada oo dhan ku nool waxaa tiradeena lagu qiyaasaa in ka badan ilaa 1,500,000 oo kun oo Soomaaliyeed oo kala degan adduunyada dunideeda iyo daafaheeda iyo dacaladeeda marka ay sidaa tahay waxa weeye qurba joogtu qayb libaax ayay ka qaateen dhisidda iyo soo noolaynta institutionka iyo qarannimada Soomaaliyeed inkastoo ay jiraan dad iyaguna dhibaatooyin sameeya haddana waxaan jecelahay inaan xoogga saaro in annagoo reer Norway aanu ku faanno in aynu leenahay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliyeed mudane Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari inuu yahay nin reer Trondheim gobolka Trondheim ka yimid Soomaali yahay qurba joog yahay farxad gaar ah anigay tahay
ماشي حاسويسا ماشي والله بس راح يجي صوتها في السجارة أنا حتى بس كان سوي حامر يعني مجرد بقيت أنا أقول اسمني المركب سيارة وحبك الخوال بركنا كل جوار روح بدنا تاي ما شاء الله وأسطورنا كهذا إسكارجة أنا هذا اللي هو أنا ماضي مجرد وقت أسبوعين مركب واحد مقدرني سايبي قف السنة وحش عليها جبر أسطورنا إنه حريق الله سنية مركب السيارة تاعي عليها حنا سنة ما شاء الله مركب هذا ما سنتها تعملت ونعكس وأنا رنتها والله وحدي كما خوف ما شاء الله ويل ولكن ما شاء الله صغار لهم وما شاء الله قاعدين ما شاء الله هذا ما صرت والله سلام حرميسي ما دام وانا حرير كل سميه هذه وقلاتي waxaan doonayaa inaan la qorto numbarkaaga si aan xiriir kula soo sameeyo ama aan kula soo waa numbarkayga waa 8 aad maasan tahay numbarkaas aan kala soo xiriiri doonaa baskiina hadda waa ka soo socdaa insha Allah waa shaqaysan doonaa hayo aad maasan tahay ولا بسفور خلاص أولي عشرة أوكي ها أوكي أوكي يا أخي طريقة ها يا أخي طريقة باهي نمودي أنا قبل سوالي هسوي جديد باهي ما فهمنا هذا يمكننا وتعال خلبنا بليشات ملايو وهم كافي سلام هل حاجة برا حاجة خلبينك أنا بكرة والله وأنا إذا عايز كذي هل قبل كا سلام كذا وستان اسمع سيا استهل وشاسي اوكي ويا هاي ظاهر أبغى من داير الله ظاهر هاي أنا بختار والله خلاص ما تبغى ما شاء الله جري ما قاعد حمدي يا ظهري أنا الحمد لله هاي هوس هاي تبين وقت عادي انت عادي سكدي قلت ما قاعد حمدي يا ظهري محاضر الله يظهري أبغى لك بختار والله معك خطأ وبسونا لينا معك وضعها هاي أركض لكن صاري عاد سكدي تسكو ضير طويل كاس بوها يا تربيه يعني مرة كم أنا بيجي Somali kan ada apa? Somali kan? Somali kan? Aku hal lain. Aku halu ekta dadki meesha leeyti. Aku kuna ishtara waqtaha cunta biiba dhulka dhan baan ku soconine. Ayis kida ku fitan wada. Bas kida soo socda. Bas Numbarka weyn tahay. Numbarkayga waa qoraynta qawalaadkiisa laakiin sida wanaagsan ila hadal horta marka koowaad. Numbarkayga waa helaysaa barasho wanaagsan. أبغى كودية حاول عشان بها بلان مكيلا. محاي بلانه. بلان مكيلا. محاي جري لها بلان ده وقت جري مجري قولي جاي قاعد يعني بلان جاي جاي محاكرة. أنت كشري تعاون. بسم الله. محاي شلونه. حقول أنت كشري تعاون كل كلام كل كلام. شنو الولد؟ محاك هذا لسانه. مالك شنو هاي مالك تنتهي. ولا بكرة خانة. بسم الله أنا بقول الجماعة ولا كم خلبان. والله يبغى من كم رجل نطلع على الأول. الله. هيا باي. هيا بريشة ولا كثير. يباشر تبع هذا. تبع هذا. ها؟ يس. ولا بابا بري بابا. Glenn, papa! Brody, papa! والله يا أبيو يقول برا بابا هي أب سومالي يقول هذا أب ما حد عن حد يقول أب ما تو فرح صدق يا أب دار يا شنبك لا بابا هي أب ما حد عن أنت بابا فيك ما ينسوا عليه سمع على ما هذا ما كان جنتا
Somaliland. Okay, but Papa. Hiya. Jag ser pappa var väldigt vacker. Somali يقول هذا Somali حق هو بعربي. Känner du kväll? Hiya. Jag har mött den pappa. Hiya. Ja. Och jag var grejen. حق هو هذا. Pappa, jag vill att du ska fixa för mig. Allt. Hiya. Har du? Jag har fått nummer eller så. Hiya. Ja. Okej. أنا لو أقول لك إنه هذا Nora. سكر. Vad ska du säga pappa? أنا جديد. أنا بدي أقول كلام ما تقنعني. Jag vet inte vem det är nummer nästa. Jag Somaliland är inte så att Somaliland ringer bara och så fixar vi allt. Nej, Sassman. Sassman. Är det inte det? Det är det. Är det tack vare mig där? Lakin vad är det du vill det keda an makano? Ja men det är nummer. Sukher. Somali بدنا كده ساس بالتكتس. ما du vill vad är det rotis baratan? Vad är det isjaglakan? Vad واحد بدنا كود هذا سان. Marka abarintas vad mig där. Nej pappa. Jag vill kunna gå isma här och sitta عنه sen. والله حسن jag vill komma dåligt. Det är så balanso. Det vill balanso. Det är för massor till pappa. Jag har nummer hennes. Bara ring henne och så fixar vi färdigt. waxaas ana kala tuuray gabadha balanso inay ku rabto soo ogaa number aad ku qalalin Hubila ma ha ku dhacdin ya fat number hubila ma okay hayu waa martay great yes hallo walaashiis هلو see tahay abayo وفي عنا بولي سيطهي abayaad waan kugu fiicnay maasha allah waagta aniga adiga ballan baan lahay inaan is aragnaa rabay ma garanaysaa maadaama gabar asturan oo akhlaaq la aad tahay marka sidee u aragtaa inaan ma garanaysaa aan kulanno is aragno أبو وفي عنا وأقول كرناو أبو وحن جالس ليه هلك حفلة سوق ويكود لولي تعال يكون كل مينا aad baad u mahadsan tahay waa xafladda ka wada luuliya ayay ballanteenu ahaanaysaa maadaama gabar akhlaaq la aad tahay insha allah waxaan rajaynayaa qof yahay inaan ma garanaysaa aan kulanno haddii ilaahay geeyo أي تعال سبدل دون أبو إن شاء الله سوق أبو waa mahadsan tahay ballanteenu waa ka wada luuliya بنتي يكود لولي Berlin. في والله يسوق ويا Hej. هاي Hvad siger du? Går det bra? ولا في عيني هاي Hej. I hvor er det? وأكون في عيني هاي Alt bra? ولا في عيني هاي Du vet, Abban handlar bara. Jag snackar med pappa. هيا أبغى ما تدري أنا كبر الحس. قمر طايلة فوق ما بين. تراي. Jag vill se dig igen. وإلى إذا كلهم تعرفها Ja. Vars med Laura? حفلة عن سوق ويكود لولي تعرفوا كور هاي سامي شو بدي قال Är det så att många folk där? يكود لولي يا صومالي ما فهمت فيها أنا Ja, men jag vill bara alla är med där. ولا في كل شيء هدارة كل كيك كود لولي الاسكو كان Kom juli. كود لولي حفلة دين صوماليا سنة جورة ده الرد بالدجاج جيران اللوقة إيه اللي سمين دورة يا تعرفوا كل مينا Men är det många folk där? وين بوحة مع صومالي ماشي وجبتها كسوق بحيانا هذا كان هذا كل يوم خمس سنين. هفت عليه الاسكو كان Okej, grejt. Där skriver vi såna. هاي مركا كود لولي أي نوبلنا Yes, grejt. hay abaayadii sii wan وفي عنا أبو hadda xafladii waa la gaaray maasha allah dad badan ayaa ka soo qayb galay ballantiina waan ka soo baxay maadaama ay u ballamisay maalinta xuska qaranka ciideena hooyo ee ka wada luuliyo ما شاء الله أبو فرح سما ما دام يلقي قادنا اسمه وين وقد جيل وين وسيدان فرحة داني وجي كود من خطبتك كسر خير قاطي ما تعرف جوك أكتاي aad baad u mahadsan tahay sidoo kale anigu waan jeclahay xafladaha waddankeena hooyo lagu xuseeyo inaan ka soo qayb galo sidoo kalena waxaan ka helaa gabdhaha sidaadoo kale maasha allah sidaadoo kale waa asturay الله ويجي شو ستيلو تاني كده laakiin waxaan malaynayaa aniga ay ballamisay si ma garanaysaa xagga nagu wada sheekaysano midkaana muxuu ahaa nooshkaa wey قلت لي كانت أبو إسكبر يا ظاهرة لها ويكانت سيدا ألتو بلميو كلا تاسيجن كود بلميو وميت أعلق أنكو أنا ما بلمسي اسمه ما بلمسي ها ميت أنكو كل ودوا ما فاهمينه لو كنا كود بيسامينه كلا بحلا عيب معها بسم الله الرحمن الرحيم وأي شيء يسوي لي يمكن معك جواب waayo waxaa mulinaya maadaama horta aniga ma jecli in anoo gabadha aan la sheekaysto inay wiil kale igu dubo dama garatan hadda way dhacday tan marka aniga waxaan rabaa ninkan isqalqaloocinayaanu ma fahmiye inaan maanta xaggan ku kala baxo ama isagaa raacaysaa ama anigaa raacaysaa
horta labadiina soo dhawaw daahir oo adigana ya wiilkan taa u jeedid asigana taa ku balamiye maantana mid ayaa idin kala waa dhageysta lima صاحب الصومال كله لما فيني واحد كان يساعد مكان يعني لما لا تنيم دقيقة ما يقدر لا تنيم أنا وين صومالي وين صومالي لا أما صومالي صومالي هذا تعيش أنا صومالي وجفتين صومالي يا أختان حولنا أختان هو صاحب تعا يا وإن شاء الله هنا ضد كذا كده ضربة صاحب تعا أنا ما تاكل بحين هذا مختار عشان سالس لكن صار ها استجي ما أنت ليش أنا يدوح أنا يقول يا رأي ويقول إني أنا عليك الصار ما فاهمينه يا أنا عليك الصار ما أنت يا المخ أول كمستقبل هيا ما أنا ليش أقرب حياة بسيط لا لا بسيط وعادي سكرت الصومالي كيف فهم صدق بركان خلاص بس ما أسمع كلام ما مخلوق عادي سكرت الشوط معاك وضع عيل صومالي سي صدق شغلنا كل بيتصير خاصة حرام اليوم برا تقالنا حاسة تقالنا كمان كمان كل بيجي حقك هذا يلا مشكلة صارش هاي دقيقة يعني سؤال يا قفكي جواب صح يسيو أنا من عيسى هو كي وعدي هاي مورني يا بخ ممكن تطبيع كلام فهمته قلت لك صباح كذا بان ستيتا ست كمان بان ستيتا أبوت وما سنتاي لكن سؤالي في جواب تاسع يا ما تطلع دين سالي سؤالي هو ما كي جواب سوماليين لصودونا يو maxaa lagu soo doontaa teeda kaleeto jaceylka aniga aad leedahay waa ku jeclahay ya leedeen bakristayantahay waa wad keliya ee jaceylka ay jeclaatay maxaa iga jeclaato aniga ya ay ugu arkatay ii sheeg qaabkeen ii dooranaysaa waqti jawaabta siin iyo cadayn aba aadi hert fashta oy blik ya fashta oy blik maxaa la dhahaa markaa ku arkaa ku jeclaa hayya markaa ku arkaa dhan fikirkeyga iyo fantigeyga kaa hayay wax waaweyn هذا سأعمل فاشتري ترسومية taasi maaragtay meeshaan ku soo koob maxay sii socon doontaa jawaabta markay siiso أبغى أشوفه هسه haye وأنا كنت أعمل haye وأقدر وأخانا هاي المفروض تعشك يا كتاج على مسألة كتاج قضي لي المسألة هاي ما تستطيع ليش تبقينا بخاطر يقولوا قناعتها هاي سؤال شيء أيام سبوع وياي هاي سويا زين ماشي نيكا مدري يا بوي نيكا معكسي غلبت بودي هاي حتى مو سايق فيها أبو نيكا هو بيرجع على ثاني قلوياي horta aad baad maasatay maadaama su'aalana weydiisay markii hore waxaan kugu jeclaaday waana aaminsanaa su'aalahan weydiinayso ninkanna markaa su'aasha weydiisay shaqaa haystaa iyo markhaatiyaan kuu noqonayaa iyo waxaan loo joogin kale ma garatay ani haddaan isku dayo inaan kaga jawaabo gabadh ani haddaan ku hormaro su'aasha hore ani waxaan kugu jeclaaday waxaad tahay gabar asturan maasha allah oo ma garanaysaa sida aan u dhaqmin sida dadka ajaanibta ah waxaad tahay gabar ilaalisa dhaqanka Soomaaliyeed kaas oo koobaad takada aad u soo gabar marka la doonayo waxa laga doontaa dadkii ka soo jeeday familkeedii odayaasha adeeradeeda xididka dadkaas oo dhan baa waqtiga haddii aan su'aasha saxay adiga ay sheegay haddii aan khaldayna adiga sheegaysa waa ma sida abu jawaabtaan haye daahir abba هلا بيبي بيبي شارع سوتامي يا تامي يا جواب كيسو ددجي جواب كيسو ددجي أنا أصلك من بابا أبا الله الله أبا الله الله جواب تعرف كيسي أبا الله الله أبا الله الله شو بيدي كتا جواب كيسي يا maxaa jidka ii maraysa haddaad inay dowlad aan jecelkaan ii soo sheeg waxay u jeclaatay maxay tahay kuusheega ku jeclahay gabadhaas aan ii doolan ahay horta adiga luqadiisa
وكجعها في كليه وهالكيس لا يستوعبها جعان عسل خليه يا وأخونا هذا وينك فرح وهاستا فرح بستا aad baad u mahadsantahay maadaama gabadha dhaqankeena aan ku faanayso waxaan rabaa hees ka hadlaysa dhaqankeena Soomaaliyeed inaan ku ammaano gabadha markasuu loo dabo timaha gabadha tirsadan ku qaangaadkayaankoodu soo baxo geedka loo tago wada hadasho gurtidu gacanqaadku u dhaco laga geeyo suryada waa gaari nolol wacan lagu soo gardaaje hubsana hawlahay viva la Soomaaliya kulankii waxaan joognay kowda luuliya lagu qabtay magaaladan Shaashbury iyo magaalada Soomaalidu ay degan yihiin magaalooyin isu tago Soomaalidu ay taageersan tahay xafladan ay ku qabteen ayaanu u nimaysay aanu barnaamijka wada qayb qaadano waxaan la kulmay nin oday ah oo Soomaali ah oo dadka ku dhex jira oo magaciisa la yiraahdo Amaleti la yiraahdo Cabdi Xuushow bal daada uu yahay iyo xilligan dhalinta halkan joogtaan waxaan weydiin lahayn dareenkiisa maanta suu u yahay bal dareenkaaga naga warmaan dareenkayga maanta wuxuu yahay waxa la arki karin oo la koobi karin weeye waa lix iyo maanta maalinka xurmada qaadana weeye waan u joogay waan u taagnay waan u diray يعني أيضا لا أغنية وتلميذ يكشت وعارن وانهي سادتها وحقيرون ما تحاول وتلميذ وتلميذ صمت وقيرون أنا كلمات وحنا قول بان ليه حلي كان أمرنا كور حلي ما تمرين وحلي كلا جوله خاصة يا شمانت وحنا عالم هذا يعني أنا جوا المجال أنا حفل عن كل جنو مدمر الصوماليات يوم مدمر الصوماليات يا عالم الصومال كان قال لي أنا ما تكون هم بالينيها وهم بالينيها أنا جا وربعين تدان هاي ما كل النبضنا ددوا وين ودأ هذا نسيبنا جي تهنا ما أنت كل ماي حفلة ده أنت بدنا نلم بعيارته حفلة ديسة أدم نقول فرحنا إن كل ماي سوى ركتا لأنت قربها كوريسي الصومالي ده حلي كان قربها جوكته درين كان سوى ركتا ده كاسل كان كوراي waxaanu arkaa si wanaagsan oo Soomaalnimo ay ku jirto arkaa ayuu ku jiro wada kula shay ay maanta qiiro ku jirto aad baa ugu mahadinaa maanta iyo wadanimo ku jirto waa sida waxa tiri dadkii u soo dagaalamaan kamid ahaa maciidan baa ahayd ha eebar hay maanta waa farxad oo goodgood baan idin caawinka waxaan ka dagaalamay aniga 4-6 wajaale dagaalkii sabasna waa galay calanka Soomaaliya markaan qaadanay waxaan ku baxshay sanadab أنا سلامة أنا كم تقانا أنا صاري لهجة كود لوليو واسدة واحد لو ضدك الصومالي جوجي برنامج كان داودان لقى يابو قرب جوجت عالم كده جوجي الصومالي ده واحد لو أسينيس وهن سينيا قول فرحت بان سينيا ضدك جوجي دي بدها إن أنا كقول السلماشان أو عرقني أو لا يردي يدك صوب حي ماته قاعد خمسين sida maanta aan waxaan ka ogsanaya magaalo kasta oo Soomaaliya laga sameeyo ogsanaya oo laga sameeyo oo wadada aan muujino waa sida aad bay farxad iigu tahay inaan kula kulmay mudane ma santahay kaabo kuladana soo aadnaan kala qayb qaadano Soomaalida la farxano bal waxa iiga warantaa dareenkaaga maanta iyo kulankan soo wareegtay dareenkaygu aad buu ugu wanaagsan yahay maanta aniga oo hooyo Soomaaliyeed ah maxaa la yiraahdaa waxaan la kulmay waxyaalo badan oo hadda aan la soo kulmay ciidii Ramadaantii oo dhamaysanay ciid aanu galay 6 toddobaadkii xorriyadda Soomaaliya maxaa la dhahaa kooxdan maanta group magaaladan aan joogno oo maanta lagu xusay kowdii luuliyo marka xamaasadeedu maama aad bay u koreysaa maama wax ma ka xasuusan kartaa in kastoo sida weyneen haddana xorriyadda maxaa ka xasuusan maama xorriyadda horta aniga wallaahi wax badan baan ka xasuustaa macnaha taariikhda Soomaaliya waa wax qoran iyo waxaanu soo gaarnay xorriyadda Soomaaliya waa loo soo halgamay SYL waa iga horeysay aniga runta marka loo hadlo kacaankii baan hadda aanu intii laakiin de taariikhay ku qoran tahay calankeena waa loo soo halgamay maxaa la yiraahdaa gurmad badan baa loo soo galay dhiig badan baa ku daatay dhul badan buu ka dhacay maantana waxay taagan tahay meel maasha Allah marka xorriyaddu maamo Soomaaliya wax laga sheekeyn karo ma aha ugu dambeyntii dadkan halkan ay ku dhasheen yar weeye
calan baa loo heesaa loo qaaday see u aragtaa dhalinta halkan ku koraysa maama aadan ugu faraxsanahay wallahi dhalinta halkan ku koraysa boqolkiiba 85 waxay Soomaalinimada ku dambaysa waxaan aaminsanahay Soomaalinimadu inay ku maqan tahay ay ka maqan tahay dadkeenii hore oo gobolnimada iyo wanaagga soo dhaliyay dadka dambe ee dhalinyarada ah waxaan aaminsanahay Soomaalinimadii iyo calan raadintii iyo wadannimada inay ku dambayso hal heesaan ku sii bunaanogaya calanka iyagoo awale wadna caawise awale calanka iyagoo awale wadna caawise awal aad u mahadsantahay xasan laba calankeed duwacayno inaga kan waacirko kale aan caadna lahayn kaasan jecelahay aad buu qurux badan yahay codkaaga iyo calankaaga iyo marada cod meesha ma jooga laakiin calankayga waa jecelahay waa kasmaanta waa wataa wiilkayga anaa dhalay heesta calanka ay hob haddii hooyisaas u qaadaysasna inuu qaadi karo taas ma yaqaan laakiin Soomaaliya toos oo yaqaanaa Soomaaliya toos ay waa taqaanaa bal noo qaada Soomaaliya toos isku siisa warye haddii taagarane adigana Soomaaliya toos waa taqaanaa bal si wada jir u qaada bal bilaabo Soomaaliya toos isku siisa haddii heesta calanka ma garanaysaa Soomaaliyay tooso isku tiirsadayeen habatiina taagdaranay taageero weligiinay waa ku aragnay dhar qurux badan wadataa adoo dhan baa u muuqda calanka Soomaaliya socda inta wajiga ma ahay dareenkaagu waa sidee maanta ما شاء الله عد بوقو فرحسنا هاي سنة كان سنة كيسوي هرت الله نجارسيو أنا جو عافمات قبنا عد بوقو فرحسنا هاي إنا كسر قيب قلي رنتي شقوة توصد وجايمد أنا كفر حسنين عكسو قارو مالنتان قروح ذو بدنين لقاته علن كيجا دت كيجا يا مالين سبتي وشقين وشقين رنت لركش شقة may waa u qaatay ayagoo asxaabteedii dadka la shaqeynaya oo dhan arkaya ma sha Allah sorta aad iyo aad u mahadsantiin iyo wardoon maanta ma sha Allah aad horta u mahadsantiin boqol maanta Ilaahay weyn ka soo subhanahu wa ta'ala waxaan maad u celinayaa jaaliyada Norway oo Soomaaliyeed qaasatan tan Ostfol ayaan u mahadcelinayaa qaasatan haddana waxaan u mahadcelinayaa adinkoo kaamiriyada iyo wariyaal adinkoo qaasatan Xasan Rasto iyo wardoon oo kaamirada aad u mahadsantiin maanta waxaan ku faraxsanahay inaan ugu soo boqotiin gobolka Ostfol qaasatan magaalada Saskatoon aad u mahadsantiin insha Allah xafladda kooda luuliyo maanta aqbal mar walbana sanad walbana waan dhigi doonaa inaan noo timaadin ayaan idinka codsanaynaa haddii Allah wada loo ogolaado wabillahi tawfiiq waan ku mahadsantiin waana salaamaya jaaliyada dhamma Norway ku nool wadda Soomaaliya aad u mahadsantiin Soomaaliya toosa isku tiirsadaya habagina tarare taageeno wiligine السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي أقيارة الدمان maanta waa maalin aad noogu weyn waa maalintii kowdii luuliya waa dareemi kartiin dhawaqa iyo waxa meesha ka dhacayo sidaas daraaddeed anigoo ah magacayga cabdulaahi maxamuud xasan alkhadiib waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay adduunka ka joogto kowda luuliya Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo waxaan kaloo salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Norway gaar ahaan maanta waxaa la joogaa kowda luuliya la dabaaldegaya inta la sugu yimaado waxaan durkaynaa marka waxaan ka soconaa warbaahintii qaranka SNTV waxaan rabay dareenkaaga bal maantana iiga waranto oo ii sheegto saa dareemaysa maanta ما شاء الله تبارك الله الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم درنكيga aad u fiican yahay ما شاء الله maadaama aan kowda luuliya oo calanka Soomaaliya maalmihii Soomaaliya xorowday loo dabaaldegaayo marka laakiin baa ku jirtee إلهي وحن كرجينا راس عصير راس كمبون أنت كده حيس هل مدحوينه هل رئيس وزراء هل علم الله سبحانه وتعالى تصل كبرينا وقت جاي كورنا عام هاك حسست حرية
aniga xurriyadda wax badan aan ka xasuustaa qof weyn aan ahay dawladda u soo shaqeeyay hotel curubaan ka shaqeyn jiray maxay ahaydee dawladnimadu sharafta ay leedahay iyo wanaagga ay leedahay iyo quruxda ay leedahay iyo waa ku faani jirnay maanta laakiin waa laga faanaya Soomaali marka ilaahay waxaan ka baryayaa raxmaanka oo raxiimka 30 madaxweyne iyo 9 calan ilaahay naga dhex bixiyo hal madaxweyne iyo hal ra'iisul wasaare iyo hal ciidan aan rabbiga subxaanahu wa ta'aala ka baryayno Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowda ha israacdo biidnillaahi kariim waxaan joognaa qaybtii sambuuski iyo burki wax lagu gadaayay bal dadka ka shaqeynaya aan weydiino iyo inay deeq tahay in la gadaayo haye sambuus ayaa leeyahay bur wala soo diyaariyay ha ma sha Allah ninka soo diyaariyay ha Soomaalida dhan festival degan in lagu ciido oo lagu faysteeyo dadka say wanaagteen maanta ma faraxsan yihiin ma sha Allah si weyn markii koowaad lagu dhigo xafladan meeshaan marka waa cabitaanka sambuuska burka jalaato waxyaabo badan ha farxadan meelo badan baa laga dhigaa dalka ah inta badan warbaahinta qaranka Oslan ka dhigi jirno joogi jirnay maanta waan ku faraxsanahay inaan magaalooyinkii raraana soo aadnay dadkiina waxaa tihiin dad haysto community fiican ah waa sidee dhalinyaradiina yararka halkan jooga xorriyaddii ma la baraa calanka iyo xusuustii ma sha Allah aad waxaan ugu faraxsanahay wiilal yar iyo gabdhaba inta ah oo inta ku dhashay ama ku koray inay sameeyaan ururkan Horn of Africa ma sha Allah wax weyn bay ayuu ku soo siyaadiyeen aadaan u warhayna aadaan isku duubanahay aad baan ugu faraxsanahay ma sha Allah ugu faraxsanahay inaan noo imaataan idinkana ma sha Allah waa maalin weyn waa maalin qiimo weyn waa maalin aad nagu weyn qof kasta oo Soomaali ah ee wadani ah waa maalin aad iyo aad u qiimo badan magacay waxa la yiraahdaa Maxamed Cilmi Cadow waxaan ku magac dheerahay xabad waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay sanad guurida dhalashada wadankeena 1 Luulyo 1960kii waxaan kaloo rabaa inaan wax niyadeed ku jiro aan sheego aniga arkaysin waxaan dhashay 1960kii waxaan ku faxay xorriyadda waxaan aad ugu faraxsanahay maanta waxaan deganahay 17 sano Norway magaaladan Shaashburg waa markii ugu horeysay aan kaga soo qayb galo xaflad loo dabaaldegayo xorriyadda wadanka sanadka dambana waxaan rajaynaynaa sidaa ay si ka fiican inuu Ilaahay nooga dhigo ubadkeennana ay ogaadaan xorriyaddeena taariikhda ay leedahay iyo taariikhda ay soo martay wax walba see u aragtaa magaaladan waxaa la yidhi markii ugu horreysay laga dhigo waa xaflad noocaan ah see dareenkaagu yahay dadkaaga aan la ciidaysid bal looga warran dareenkaaga maanta xaqiiqatan dareenkayga maanta lama qiyaasi karayo waa maalin xaqiiqatan aad u weyn waa maalin aan dareemayo inaan Soomaaliya joogo waa maalin aan dareemayo inaan dal leeyahay waa maalin aan dareemayo inaan calan leeyahay waa maalin xaqiiqatan qalbigayga ku weyn waa maalintii ugu horreysay ee aan xaflad caynka aan ka qayb galo muddo intaa leeg aniga shakhsiyadda waxaan ka soo guuray waqooyiga in yar oo kooban ayaan deganahay maanta waxaa farxad weyn ii ah inaan helo qorax cirib buluu ah iyo maalin calan ah marka xaqiiqatan waa 3 farxadood oo aan in badan raadinayay oo aan maanta aad ugu faraxsanahay idaacadda muxuu ahaa qaranka aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa sida weyn ee ay nooga qayb qaadatay sida gaarka ay nooga warqabto anigoo ku nool cirifka adduunka qaybtiisa waqooyi way mahadsan yihiin aniga iyo caruurtayda iyo dhammaan ehelkaygana waan ciideynaa bismillaah saa u jeedaan gadaasheeda waxaa ka socdo xafladdii 1 Luulyo oo xafladdii ugu horreysay gobolka Ostfold bariga waddanka Norway ku yaala laga dhigo waxaana soo abaabulay dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka degan ururka dhalinyarada Horn of Africa iyo jaaliyadaha dhammaanba waxaana ay u dhacday sidaa u jeediinba si aad u qurux badan ilmihii waddankan ku dhashay oo dhan waxaad arkaysaa calaamadii Soomaaliya wato kuna faraxsan inay arkaan dalka ay ka soo jeedeen iyo dabaaldigiisa anigoo Ahmad Abubakar Cusmaan oo ka tirsan hadda xisbiga shaqaalaha ee magaalada Shaashburg iyo gobolkaba siyaasiyiinta ugu daadeer hadda kamid ah hadda dhow soo galay waxaan idin leeyahay Soomaaliya isku wada toosa marka hore horta maanta waxaan u hambaleynayaa dhammaan ummadweynta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maalinta xorriyadda Soomaaliyeed inay maanta tahay maanta dareenkayga ma soo koobi karo wuu kacsan yahay maadaama aan meeshan iskugu imaanay aan u dabaaldegayno maalintii mataqaana aan xorriyadda ka qaadanay gumaysigii dareenkayga aad buu u kacsan yahay waxaan dareemayaa maanta inaanu nahay waddan oo maanta isku tashaday oona mataqaana horumar gaaray inkastoo waddankeena dagaalle ay naafeeyeen 20 sano ugu dambeysay laakiin
meeshii weli xorriyaddii waa taallaa waxaanu nahay waddan madax bannaan maanta intaas ayaan maanta ku faraxsanahay cid aad u maadaama mas-uuliyiintii abaabulka ku jirtay guddiga ku jirtay dhallinyarada ahaa cid aad u mahad celinaysa si khaasa waxaan aad ugu mahad celinayaa dhammaan ummadweynta Soomaaliyeed ee bulshadii soo qabaqaabisay barnaamijkan ee ugu horeysa ururka dhalinyarada ee ka dhisan gobolkan Ostfol Horn of Africa Youth Organization ururka dhalinyarada ee ka dhisan gobolkan iyo hooyooyinka Soomaaliyeed iyo waalidiinta Soomaaliyeed iyo dhammaan inta ka qayb qaadatay aad ayaan ugu hambalyeynaya iyo dhalinyaradii mataqaana ururkeena kamid ahay ay kabo ma santahay waxaan filayaa camalaydu waa mahadsantahay aadan kugu mahad celinaa mahadsantahay gabar Soomaaliyeed baan aragnaa calankii ku labisan nin calankii isna garabka ku wata aad baan idin salaamayaa saaxiib waxaan idin weydiin lahaa bal dareenkiina adiga haddaad iigu bilowdo maanta waa dareenkaagu waa sidee bismillahi raxmaan raxiim dareenkana horta aad iyo aad maanta u faraxsan yahay maadaama aan ka tirsannahay dadweynaha ku nool gobolka Ostfol waxaan leeyahay Soomaalida meel kasta ay joogto waxaan leeyahay hambalyo maadaama aan xusayno toddobaadkii xorriyadda ummadda Soomaaliyeed 26 Juun 27 ilaa 1 Luulyo marka meel kasta aad joogtaan waxaan leeyahay hambalyo iyo israac wanaagsan waayahay gabadhan calankii bay wadataa gabar qurux badan oo dharkii ku soo labisatay bal dareenkaaga nooga hor walaadna aad baad u mahadsantahay xasan dareenkayga maanta ma la qiyaasi karaayo aad iyo aad baan u faraxsanahay because waa maalin aad noogu weyn maanta ما شاء الله لما قياسي كرا درانكيga maanta aad buu kacsan yahay aad baan u maasantahay xasan welcome to Ostfol waayahay nin dhalinyaro kala ku xiga iyo waran magacaaga wallahi magacayga marka hore waa xasan axmed muude oo ka soo jeeda magaalada Fredrikstad magaalada ku dhagan xasan maanta waa dabaaldegaysaa alxamdulillah maanta waxa uu dabaaldegayaa maalinkii waddanka national day-ga ee 1 Luulyo ee xorriyadda Soomaaliya waayahay haddii aan ku weydiiyo si wada jir haddaan u qaadno heestii Soomaaliya tooso ani adiga ka war waa qaadi karnaa 1 Soomaaliya tooso isku tiirsanaade hadba kiina taag darane taageero weligiile Soomaaliya alwalaado gabar kale noo timid dabcan barnaamijkii baan gudaha uga jirnaa dadku way badan yihiin walaal magacaaga haddaan noo sheegto walaal shukri sheekh nuur alayra shukri sanad guura wacan sanad guura wacan see dareemaysaa maanta dadka Soomaalida halkan wallahi waxaan dareemayaa halkan kuma soo koobi karo waxyaabo fara badan aan dareemayaa maadaama ay tahay maalinta calankeena maalin ugu weyn maalin qaali agteena ka ah oo qiimo badan codkaaga inaad bannaan tahay ma aqaano gabar Soomaaliyeed baad haddii aan ka codsado ka waran heestii Soomaaliya tooso inaan loo qaado waa qaadayaa Soomaaliya tooso isu tiirsadee habakiina taag darane taageero weligiina Soomaaliya ha noolaataan gooleysa adiga waa dabaaldegaya anigoo ku hadlaa magaca ururka Horn Africa gudoomiyaha sportska Horn Africa aniga waxaan leeyahay ka soo gal wacan yaa laga maqnaana xafladda 1 Luulyo dhalinyarada ee soo awaabuleen Horn Africa iyo jaaliyadda Shashborg iyo Fredrikstad waayahay agtarad baan aragnaa wax jilaysay gabar Soomaaliyeed oo jilayaasha ka mid ahayd oo aanu daawanayno barnaamijka kor saarnayd walaal magacaaga iyadoo waa xamdi maxamed walaal xamdi waa ku salaamay waa ka qaaday maalin wanaagsan qurux badan loo dabaaldegay sanad guuradii dalkeena iyo calankeena ما شاء الله مالي زايد وفرح بين بدن قلبي أنا كقرن ما شاء الله قبل كلات كتب مقالة ما مقالة ما دقنية والد كي قاعد دقن هل دنا يانكي ماذا سوورك تادت كان صوب نام عيار عاو قبلي ويلا هي سهل لو قراعة أو قربها قاركوت كل شيء سوورك والله وين مدينة صارت كودلوا لي إلا حصة ولا حسوستا دلنير تكون دشتي ودنك إني حسوستانا أصل كوج ماشي كسوي معدن ما شاء الله سعيدة يفرح قلنا سا قلبي يجرحها يعني سعيد وقتك مسجل كيجا سعيدة وفرح سنة هاي إن أجلت تقانوا أركي هي أساس إسكتي هي سحنوا أكا عصدو أنا أديك السيوة دجرة موقعنا هسي الصومالي توصي كو لا صدع Soomaaliya tooso isku tiirsadee hadba kiina taag darane taageero weligiine magacaygu waa Ilyas Cabdulla Cabdi Ilyas oo waddanka Norway yimaaday 3 sano ka hor oo maantana aad iyo aad u qiireysan oo tusaya shacabka Soomaaliyeed meel walba joogno anaga hadana Soomaali aan ku faano calankeena buluuga dadnimadeena oo saas akule magaalada la degan
magaaladan aan deganahay dadkan soo bannaan baxoo farxaya see aragtaa dadkan dhalinteeda waa wax fiican oo in lagu daystado ee mudan tahay qof walba inuu soo baxo ubadka tuso anaga manihin dadka waddanka iska leh dadkan dad caddaan waaye dadkood wayna caawinayaan waa inaan wax ka qaadanaa dal aan noo baahan dad aan noo baahan ciid aan noo baahan dhaqaalaan leenahay waa inaan dhaqaaleen iyo waxayna dib u gelinaa asalaamu calaykum fiicantiin ciid mubaarak waxaan idin weydiin lahaa see dareemaysaan maanta wallaahi maanta dareenkayga ma soo koobi karo maalintan waa maalin nagu qaaliya waa maalin shacabka soomaaliyeed xusuus u mudan wallaahi dareenkayga ma qiyaasi kara aad ayaan ugu faraxsanaa inaan kasoo qayb galo fiican tahay magacaaga nafisa beebi xambaarsan tahay ii sheeg beebiga ayaa waay hawyaraa dhashay hooyadaa dhashay walaashaa waaye naay hawyar habarar baa u tahay waayahay maanta waa farxsan tahay maxaa u farxsan tahay ciidda kowda luuliya waay marka ma ku jirtay ardaydii tartamaysa halkan oo su'aalaha la weydiinayo may laakiin waa ciyaartay adi ma ciyaartay maanta mayo magacaagiisa hibaaq ma taqaanaan heesta soomaaliya calankeeda ma taqaanaan soomaaliya toose ma taqaanaan imay qaadi kartaan anaa idin bilaabaya Somalia toso isku tiirsanay halkiina taageranay taageera weligeen Somalia ha noolaato Somalia ha noolaato way saataada ma fiican tahay magaca ilham ha meeqa sana jirtaas gabar weynaad tahay maasha allah maanta waa dabaaldegaysaa waa kowdii luulyo way soo maaha heesta calanka miyay qaadi kartaa Soomaaliyey toos ku tiirsadane habakiina taageerane taageero weligiine maasha allah ma fiican tahay fiican yahay seetiin idinka magaciina ii sheega waxaa la yidhahaa shakal yuusuf maxamed adigana yaasmiin maxamed nuur adigana adeer yaasmiin yarey waayahay kowdii luuliya u dabaaldegaynay xus weyn waay soomaalida isu timi magaaladiinniyaan soo booqannay bal dareenkiina si kooban see dareemaysaa maanta walaa aada u faraxsanaa sababtoo waa annagaba safara u soo galna maano saa ugu soo qayb galno intee degantiin moosa degannahay marka waa ku faraxsannahay isla socod walaashay waa gabadhaan adiga dareenkaa waa see walaal aad iyo aad dareenkayga waa ku faraxsanaa kowda luuliya oo maanta Norway anoo jooga ka qayb qaatay waxaan deganaa Shaashburg waa markii ugu horeysa la yiri la sugu yimi xaflad noocan gobolkan Oslo waadi marka dareenkiina aad buu uga duwan yahay marka Oslo aad xalamo seexaninba marka waa maalin Soomaali dan ku weyn maahno marka Soomaaliya sraacdan dheey bal yaa waa mahadsantahay noolaad hay ummad Soomaaliyeed oo dhan hambaliyo luula la dhaa luul waa faraxsan tahay luula waa faraxsanahay maanta waa maalinka calanka Soomaaliya isu tumid waxaan rajaynayaa Soomaalida insha Allah israacdo calankan meel loogu soo wada jeesto alxamdulillah ilaahay nabada nooga dhigo wadanka gratulera madax tag يونا لك سلام فعلا هذا ليس كودي مقع جيسة ولا لك يا عمر قاسم ويلك يا كركا صارنا وفرح سنتهاي والله لا قيب سفرح فرح دار وانا ولا قيب ويلك ما شاء الله وهكذا انت دقنت يا قبل كوست فول خاصة مقالة فريدريكستا انت ان حفلة لو قبت مركي يقول رئيس قبل كان حتى لو قبت ما والله وفرحت وعروتنا وإني أركان دقن كودا iyo maalinta xurriyadda ay tahay marka maalin waan ku faraxsanahay ma sha Allah idina maanta dadkan la hadlayna dareenkaaga iga war dareenkay aad u faraxsanahay ani waxaan ka imid Oslo oo ilaa inta soo aaday inaan la qaybsado reer Osland ma cabisidba ya meesha ka dhacaysa ma cabisid ma sha Allah ma cabiri karo anagana aad ugu faraxsanahay anaguna waxaan ka nimid Oslo sidoo kale warbaahinta qaranka ka soconaa marka see dareenkaaga bal si kooban maanta farxaddaada see u muuqata farxaddaydu wallaahi wax badan ay xasuusinaysaa wadankii aan joogay iyadoo farxaddan inta ka weynba ay jirto waxaan soo xasuusanaa iyadoo nabadii ay jirto balsamaad ay tahay ayaan soo xasuustaa maanta maalinta ay jirto oo kale martideena sharafta leh oo barnaamijkan kooda luuliya ka soo qayb gashay dhammaan bulshooyinka mataqaanaa ku nool
gobolka Ostifol magaalooyinkiisa kala duwan Fredrikstad Sabisburg Halden Moss iyo dhammaan inteeda kaleente sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii barnaamijkan ka soo shaqeysay in oo suurta geliyay inuu barnaamijkan xafladda kooda luuliya inoo qabsanto waxaan rabaa halkan dad badan oo barnaamijkan wax ka geystay inaan u mahadceliyo sidoo kale aan guddoonsiiyo hadiyado qaas ah qofka ugu horeeya rabaa inaan waxaa weeyaan TV-ga qaranka Soomaaliyeed wakiil uma taqaana soo dirsaday nin wariye Xasan Rasta saacabka la siiyo wariye Xasan Rasta Ayal kuwa